يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. كل أخرية ما تورد ودعوين كل أخرية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan dadka ducada ka soo qayb galay yar iyo weynba gaar ahaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadkii muddada faraha badan la ku soo howlanaa hawshan ee isku howlay dadku laba waxba isku qaldayeen caleemasaar iyo duca isku qaldayeen waxaan moodayay dadku inay bixeen oo caleemasaarku wuxuu leeyahay astaamo gaara iyo howlo kortuu leeyahay caleemasaarku wuxuu leeyahay istiikaro meelaha lagu dhajiyo muxuu ahay shaacin la shaaciyo ilaa laamiyada laga laalaadiyaa tabeelayaal waaweyn markaasaa la caaqil hebel ama suudaan hebel baa la caleemasaaraya laakiin halkani may ahayn caleemasaar ducay ahayd ka horba muddoba imika dee caaqilnimada waan haynay kaarhka caaqilnimada muxuu ahay caleemasaarkuna wuxuu dhacaa intaan kaalka muxuu ahay caaqilnimada la qaadan ka hor ayuu dhacaa dabeete saasaa muxuu ahaye loogu tagaa oo lagu geeyaa marka la geeyana saasaa lagu soo qaataa kaarhka wayn haynaba imika muddoba inagu wayn haynay iyo sharcigii caaqilnimadaba wayn haynay marka waxa caleemasaari horta meesha kamay jirna duca ahayd ducadana allah inoo aqbalo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa sidoo kale muxuu ahaye hablihii ilaa xalay ilaa toddobaadkan oo dhanba shaqaynayay ee faraha badnaa reer xaaji xasan ha ugu horreeyaan weliba ilmo axmed ha ugu horreeyaan oo ilaa imika 4 cishaba halkaasna ugu imanayay iyagoo shaqaynaya oo tabcaya muxuu ahaye rag iyo dumarba waxaan leeyahay ilaahay tisaayigiinni waa haysaan waana heli doontaan insha allahu waxaan aad iyo aad muxuu ahaye ugu ducaynayaa ehlulbeytka meel kasta joogaba waxaan leeyahay ilaahay culayskaa ka dulqaado ilaahay dhibaatadaa ka dulqaado ilaahay ha barakeeyo ilaahay ha soo aruuriyo ilaahay waddanka aanu degannahay nabada ka dhigo ilaahay beled ammaanaha ka dhigo ilaahay deegaankaa ka awowbaan ku noolayn dad fiican oo sharaflana waynala degan yihiin oo aad iyo aad ilaa awowgay beertaa iminkaan fadhiya waa beertii awowgay muxuu ahaye fadhihi jira weeye aabbayaashayaan ku soo koray annagaa ku soo kornay muxuu ahaye deegaankaana waanu ducaynaa deegaan barakaysan allah ka dhigo deegaan ugu abuuxa allah ka dhigo waxaan aad iyo aad muxuu ahaye sidoo kale iyagana ugu mahadcelinayaa martidii dee tii ugu mudnayd ba ahayd ee ka timi xagga iyo Itoobiya suldaankiyo Kenya ka yimi xitaa laftigiisu joogo waxaan leeyahay ilaahay nala fadhiya hadalkan soo gabagabeynaya ilaahay kuwana allah soo fudaydiyo allah soo fudaydiyo allah soo fudaydiyo hawl kastoo ayna haystaba allah inaga daadajiyo allah inaga daadajiyo culaysiga allah inaga daadajiyo kii deyn loo haysta allah ka dhameeyo kii deyn loo haysta allah ka furfuro kii maxaa ku dhahay xabsiga ka jira allah inooga soo saaro ducadaasoo dhan isagoo la soo dhameeyey haddana qur-aankii baan u soo gabagabadiisii u soo galayaa beedka iyo khiyaarta isugu timid xafladan qiimaha iyo qaayaha leh aad iyo aad u sharaf badan waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh salaan kadib aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta xafladan inaan ka soo qayb galno lanaguna soo dhoweeyo xafladdaasoo aynu ku ducaysanayn
aynu kuna caaqilkeennana aynu ku sharfayno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay taasi waxayna tusaysaa maanta aynu meesha isugu nimid idinka haddaad tihiin reer somalilan ahlubeydka deggan inaad muujinhaysaan wadajir iyo iskaalmaysi waana runtii arrin aad iyo aad noo farxad gelinaysa ay tahayna in lagu daydo shariiftu meelo badan bay kala degan tahay oo wayna isla socotaa sida runtii inkastoo la kala muwaafaqo badan yahay laakiin anu waxaana kenyana waan ka imid haddana waa kan waan idinla joogaa waxaan dhihi karaa labada meelood hadda intaan anugu arkay ugu muwaafaqo fiican weeyaane waxaan rajaynayaa kuwa kalena inay sidaasoo kale yihiin ama ay ku dayan doonaan marka waxaan leeyahay halkaa laga sii wado inagu dad ahlubeydaynu nahay ahlubeyd haddaynu nahayna kolka u horraysa horta waa inaan ilaahay ka cabsannaa cabsida ilaahay baa wax walba lagu gaari karaa hadday muwaafaqo tahay iyo hadday is-ogaansho ay tahay iyo hadday horumar tahayba marka koowaad cabsida ilaahay aan ku dadaalo nin waliba oo ahlubeydii waa inuu ilaahay ka cabsado oo dadka kalena uu soo jiido cabsidaas laynagaga daydo diintana la barto diinta islaamka innaga laynagu ogaa waa in diinta la barto laguna camal falo markaasaynu gaadhaynaa muxuu ahaa meeshii aynu aakhiriya adduunba aynu higsanaynay marka muwaafaqadeenna allah inoo sii wado aad iyo aad baydun u fiicantihiin somalilan ahlubeydka jooga isagoo aan rajaynayo caaqilkeenna guud ee somalilan inuu dadaalaya haddana uu halkaa dadaalkiisii uu ka sii wadanayo ururinahayo ahlubeydka meelay joogaanba madaxiisa allah inoo raajiyo xafladdan sharafta leh maanta halkan laynoogu qabtay aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay caaqilku waxaan leeyahay caaqilkii jira ee jooga ha noqdo kii ahlubeydka hogaaminaya haddii ilaahay yidhahdo wanaagga u horseedayana allah ka dhigo waanu ducaynaynaa marka insha allahu tacaala caaqil waxaan leeyahay madaxaaga allaha noo raajiyo ilaahay idinkii madaxaaga allaha noo raajiyo kii diinta islaamka iyo wanaagga ku hogaamin lahaa ahlubeydkana allaha kaa dhigo intan isugu timid meeshana dembigooda allaha dhaafo ilaahay idinkii waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu jannatu firdowsa inagu wada kulmiyo inta inaga bogtana ilaahay inoo caafiyo inta inaga dhimatayna ilaahay naxariis waasaca uu siiyo marka halka aan ka wadna ahlubeydow halla is ilaaliyo ahlubeydnimada ha la ilaaliyo sharafteenna aan ilaashanno islaamka aan la joognana aynu si wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan aynula dhaqanno si laynooga daydo wanaagga marka intaasaan kusoo gabagabaynaya aad iyo aad baan idiin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku wareejin doonaa suldaan yuusuf sharif madnuur oo maxaan ku dhahday noo ducayn doona gobashana kolley ducada duqii ay sababtiisa ku dhacday isaga iyo shariif yuusuf iyo shariif khaliif iyo gudoomiye cabdinaasir afarta duqaytida intayada kale garab baanu u ahayn rag aad u daalay baa jira oo in loo duceeyaan aad iyo aad ugu baahanahay afkaygana aan ka sheegi doono waa shariif liibaan jamaaludiin hawl fara badan baa haysatay haddana shaqadiisa xafiiskiisaanu ku dhexayn hawsha khayr allah siiye waxaa kaloon isna qalbigayga ka baxaynin walaalkay doctor cabdiraxmaan shariif maxamed shariif cali oo isaguna abaabulka iyo hawshaas dadkii ugu tunka weynaa ee shariif liibaan isagana maxaan ku dhahday hawshan la taagnaawna shariif mahdi oo isna habeenaya dharaar isaguna aan seexanin iyo duqaytidii kale la shaqaynaysay oonan iminka halkan kusoo tira koobi karin in loo duceeyo
إلهي وقت جوجا يبحيان وقت خير قبيل هاي نوجا إلهي إنه الجنة وجو بدله إلهي إنه وبد كوجا وجو بركايو إلهي أوريه وجا إنه وجو بركايو إلهي أرساق ذو ده وجو بركايو إلهي هوشا قبتين تو خير قبتين الله وجو بدله دال كوجا دال خير قبه الله كديه دال عبادة الله كديه دال النماء الله كديه دال دينيد الله كديه دال أي أمته كبحين أيام بو هاي دال خير قبه الله كديه دقيتنا سوي دالين دعاء أنا دعيني إلهي دعاء مقبولة الله كديه إن قرنا الله إنه أقبله وحن سجار هانا يسكت هانا بوشة جيا حبلها أنت كعبنا يسوق بالله وهبلها إني وأسراد يدي وشرفت يدي إلهي وحن وقبرين إلهي أبد خير قبيله إلهي سيا إلهي أبد خير قبيله إلهي نصية إلهي قوة النبي الدين لإلهي نصية قوة القاض لإلهي نصية قوة الشرف لإلهي نصية قوة عزية كرامة لإلهي نصية قوة خير قبيله نصية ضدك أي كحليهين ولا شمون وقوه الرئيسنا الله سوداي الله سوداي الله سوداي مونا إني أركتو محين النادي إن كيجي بري أما عاوة ور محين النادي ور شريفته ولا قاعد بالي تري دعاء دي ور ما تين سوق قلبي فيونا ور ما تين دعاء سرنا ور ما تين تقدمي ديني بين كل مسلم ور ما تين محاك وراداي لابتين اسبوع اللاب حرنته ور محاتر هذا إن أنت محاتر هذا الله سوداي إن أنت خلي أنا ما أراني قفك السوق قفك حرية من حاتر هذا وقفك يوم قفك حرية إلهي وحنك عقبرين سيدك دقة أو محاك وراداي دم بالعانة أو سيد النملة أو سي شرف لا أو سي عز لا أو سي كرامة لا أو سي خير قبتها أو سي بركة سنة المهاجة عافاء قبل الله كوجو كيرو المهاجة عافاء قبل الله كوجو كيرو الحمد لله عليك خلان دبلت هذا الكوال دميجي أنا هرينا لوما هضلو مركا وهروي وحانو دعينا ضمركا وكنت بريي إلى وقتك هذا شاهتهاي هذا قريعتهاي هذا قدتهاي dabka inoogu jiray ayaynu marka u horeysa inta inaan wax kala isfan ayaynu gaar ahaan dumarka horta guud ahaan u ducaynaynaa in ilaahay inuu dembigooda dhaafo wax la aakhiradooda iyo adduunyadooda waxay doonayaan ee qalbiga ku hayaanna ilaahay u aqbal ilaahay u naga aqbal ilaahay iyagana u aqbal muraadada halka ay u yimaadeenna ilaahay u fudaydi intaasi waa ducada dumarka ta kale way dambaynaysaa waxa weeye walaalayaal dadka islaamkiihi markuu meel isugu yimaado wax fardo kifaaya la yidhaaho ayaa fuula oo hadduu qofku fardo kifaayaha la iman waayo انت هلك أجوكت وآثم انت هلك أجوكت ودن آثمين بين قوة دنبابيتا هذه فرض كفاية شخصي كميدي وليمان هذا الكا ولا دم يوتو مركودي من كوريتان إلهي كيابنا إلهي كياب كيس آخرية الدنيا وحل ولي بانوي إلهي القرآن كيس وحكو يدي كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز سبحانه وتعالى إلهي بأسدايد نفكستو إلهي أبو ري موت بي أؤمن يويد من إيسا قفوا البو إلهي أبوراني عمل كل يمد أما خير هذا أما شر هذا ولو فينا يا ولو ما يترى يا فمن زحزح عن النار إلهي وحده سبحانه وتعالى يقفك النار تلقى فوقيه وأدخل الجنة جنة اللي
jannadu waxa weeye guryo iyo basaatiin yani bustayaal ilaahay ugu talagalay dadka baariyaasha rag iyo dumarba ee adduunyada u dhaga ilaahay u dhagan nuglaa halka yani lagu abaalmarinayay weeye jannadu qofka camalkiisu u wanaagsanaado ee naarta laga fogeeyo jannadana la geliyo faqad faaz baa ilaahay qofkaasi wuu liibaanay adduunyadu walaalayaal maalmaha la joogaa looguma talagelin in adduunyada qof waliba intuu doonuun iska joogo looguma talagelin qof waliba maalin buu adduunyada ka hoyanayaa anuu shakhsi ahaan markaan iska hadlo intaan soo gaadhay halkan ilaa 59 halkanaan joogay dadkii aan soo gaadhay iyo kuwii ku xigtay qofna kama joogo rag iyo dumar dadkii la waqtiga wax yar baa ka jooga dadkaasi walaalayaal dayn way qabin qof walba markii waqtigu ka dhammaado saacadna dib loo dhigi maayo saacadna loo soo qadimi maayo waa qadarkan dadka qaarkii iyagoo sujuudsanood ilaahay wajiga ilaahay sharafta la dhulka ku haya dabadana cirka u taagay baa ilaahay nafta ka qaadaa dad baa markii habeenkii saxdaan aroortii quraac araabiin quraacda u geeyo odagii oo qallafuun loo tagayaa waxaa waliya walaalayaal innagu waxaynu nahay dad ashraafoo rasuulka u nasab sheeganayaynu nahay rasuulkuna adduunyo lagama dhaxlin ambiyadii oo dhan baan adduunba laga dhaxlin isagana iska badaa isaga ambiyada diin baa laga dhaxlay inantiisii Faatuma rasuul alayhi salaatu wasalaam maalmaha kamid ayuu sayyidina Ali baa isagoo taa u foorara ayuu rasuulku yidhi war Ali maxaad foorartaa wuxuu waxaan doonayaa buudi inanta Faatuma leeyda inaan guursadaan doonayaa buudi yani adduunyadu halkay rasuulka jeegtay baan idin sheegayaa wuxuu yidhi waxaynu inanta ugu fadhiisanno miyaad haysaan u geed fadhiisanno rasuulka ilaahay wuxuu yidhi dirham iyo diinaar midna ma hayo wuxuu yidhi diricii seefta iyo waranka aad isaga dhigaysay ku siiyey ma haysaa هابو سو يقول 4,400 درهم بسوسية سلاسة أيونتي لوغو فريسي وقوقو سدي فردقاني يحبله الله دونان سلاسة طريقة وهاي سنو هاي مركو أقل قالي هبينكي هرق أديبي قوة السيحدين هذا يا رسولك عليه الصلاة والسلام يا دنيا قيمة لا يضحي إن أنت سهرك عليكم هي إن كان المالير كي يصدقن ويا يكون متعيين الدنيا ولا ليال وحوي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الدنيا ذا جديد ينولش وحكر والله ما أبورين وحلا أبورين qofka wanaaga sameynaya qofka xumaanta sameynaya in lagu kala imtixaamo oo ilaahay uu kala ogyahay in la ogaado qof walibana wuxuu adduunyada khayru sameeyo waa loo lama laabaya wixii shar uu sameeyana mar kaliya baa loo qoraya bal ilaahay xikmadiisa iyo raxmadiisa marka walaalayaal haddaynu inagu reerka nahay qabyaaladkuma hadlayo isma yacmali reerka ka hadale inagu dadku waynu ga dilicsannahay xagga diin ahaan baynu ga dilicsannahay dariiqi rasuulka inaynu ficil iyo qowlba inaynu ku dhaqannaa la doonayaa weliba anu waxaan leeyahay ragga iyo dumarkaa sii jilicsan dumarkaa weliba sii raxmad badan ilaahay dembigooda ha dhaafee waxaan arkay halkaa lagu raqayey dadkii soo bisleeyey إلهي مويان عدنا يعني هلا وأماني وحلا شيء منا أنا شو كرنا إلهي درك هالكان دبك يقرأ ذو كجرة مركا وحين يلينا ديال لينا دليل يروي
aynu ku sifowno albaynimada oo salaada dadkan halka qadaadka xiiraya timooda geedka moodayaynan inagu yeelanin wanaaga halaynaga daydo waxa weeye walaalayaal rasuulku wuxuu alayhi salaatu wasalaam inna allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu الدنيا ذا قف إلهي جعلي هين وصيا قف نعلي هين وصيا ولا يرضي مصيا الدين إلا من يحبه هذا الدين ده أنا وحدتك الدين ده وحده يستان قرآنك يا حديثك يا ماها كل الحرين الله ينقدره شريفك جيت كان سبحانه وتعالى إلهي سبب كيسة وهل كان ينقول كان يقول هل كان أساسي يوبت كيسة الله بركة إن كان إلهي دمك وضح داف دوعتك أن الله أكبر خاصيا إلهي كمركا وحي دونيان الله ماذا غيزة الله راجيو باركن إن شاء الله تي أدون لقى هلا موافقة لقى هلا وحب لقى هلا الله كديو بارتو هفر فرطو لعق هلا هلا إنما ذلك الرجل يضمن بنا وركضن بيا عقلك ورارنتي سوالتن هلا قاتو السلام عليكم هذه أدوم مع سيهاي وحنا منكي هاتن الميكروفون كوريجين دونا وقتي جنار دي جبجبة نسكسي مرينا شرف علي يمني اللهم إننا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما ونسألك دوام النجاة من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا يا الله وارض عنا يا الله وارض عنا يا الله اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا اللهم أصلح ديننا ودنيانا اللهم أصلح ديننا ودنيانا اللهم أصلح ديننا ودنيانا اللهم شتت شمل أعدائنا اللهم شتت شمل أعدائنا اللهم شتت شمل أعدائنا اللهم احفظ أهلنا وأموالنا اللهم احفظ أهلنا وأموالنا اللهم احفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بسم الله نرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله نرقيكم